waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah gudoonka golaha shacabka oo si rasmi ah u shaaciyeen inay sharci yihiin xildhibaanada Ceelwa iyo faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya kulamo uu aadan madoobe la qaato xubno ka tirsan beesha caalamka isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha oo si toos ah u bilaabatay iyo musharaxiintii ugu badneed oo isdiiwaangelisay saciidanina niyad jab weyn ayuu kala kulmay xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland iyo Puntland iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawan doontaan boqorka dalka Sacuudiga oo cisbitaal la dhigay halkan waa janalka dalka TV media qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona daawadayaal fadlan hadda nagu cusubtiin nagu soo biiro oo ka mid noqda saaxiibada sida joogtada u hela wararkii warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiina waa inoo dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan gudoonka golaha shacabka ayaa si rasmi ah u shaaciyeen inay sharci yihiin xildhibaanada Ceelwa faahfaahinana waxa ay ka soo baxayaan kulamo uu aadan madoobe la qaatay xubno ka tirsan beesha caalamka gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo go'aan rasmi ah ka soo saaray xildhibaanada muranka uu ka taagnaa ee gobolka Gado ayaa u aqoonsaday xildhibaanada lagu soo doortay Ceelwa inay yihiin kuwa sharciga ee matalaya gobolkaasi gudoonka ayaana sheegeen inuu go'aankan saldhig uga dhigay markii uu arkay in xildhibaanada lagu soo doortay degmada ee gobolka Gado ee habraacyada doorashadooda meel mariyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal isla markaasna ay doorashadoodu qabteen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed Jubbaland waxa uu sidoo kale sheegay in xildhibaanada sheeganaya in lagu soo doortay degmada Garbaharey aysan haysan shahaadadii guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal isla markaasna aysan doorashadoodu qaban guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed Jubbaland gudoonka ayaana sidoo kale xusay go'aankii uu ku aqoonsaday gudoomiyihii ku-meel gaarka ahaa ee xildhibaan ambaasador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhamancad xildhibaanada lagu soo doortay degmada Ceelwa ee gobolka Gado xildhibaanadaas oo la dhaariyay isla markaasna habraacooda loo dhameystiray si waafaqsan go'aankii gudoomiyaha ku-meel gaarka ahaa ee xildhibaan ambaasador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhamancad waxaana isla warkan lagu yiri sidaasi daraadeed gudoonka ayaa go'aamiyay qodobada kala ah in xildhibaanada lagu soo doortay degmada Ceelwa ee gobolka Gado ay yihiin kuwii sharciga ahaa kuna matalaya gobolka Gado baarlamaanka 11aad maadaama madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu furay doorashada habraaca doorashadooduna ay qabteen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed shahaadada rasmiga ee xildhibaanadan ay siiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal uuna taageeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ah madaxa doorashada dadban ee 2022 ilaa 2022 sidaasi daraadeed aysan jirin meel laga duro habraaca xildhibaanada lagu soo doortay degmada Ceelwa ee gobolka Gado qodobka labaad ayaa lagu yiri gudoonku wuxuu ku talinayaa dadka walaalaha ee gobolka Gado ee xurgufta siyaasadeed soo kala dhaxgashay inay khilaafkooda wada hadal ku dhameeyaan maadaama doorashadii dhamaatay dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa kulan la qaatay siihayaha safaaradda Norway ee Muqdisho kulankan ayaana looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo doorka wakiilada beesha caalamka ku leeyihiin hanaanka geedi socodka nabadda iyo horumarinta Soomaaliya sidoo kale waxaa kulankan ku weeliyay wakiilka gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Norway u qaabilsan arrimaha Soomaaliya wakiilada ka socda dowladda Norway ayaana gudoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya la wadaageen hambalyo iyo salaan ayagoona ugu hambaliyay doorashada gudoomiyaha asagoona xilkaas ku guuleystay 27 Abriil gudoomiyaha Aadan Madoobe ayaana dhankiisa ku bogaadiyay doorka wakiilada beesha caalamku ay ku leeyihiin hanaanka geedi socodka nabadda iyo horumarinta Soomaaliya sida lagu sheegay qoraalka soo baxay golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Sheekh Aadan ayaa kulan la qaatay safiirada midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo danjiraha dowladda Talyaaniga u qaabilsan Soomaaliya diblomaasiyiintan oo u yimid salaan iyo hambalyo ayuu gudoomiye Madoobe bogaadiyay mashaariicda horumarineed ee midowga Yurub ka fuliyaan Soomaaliya iyo sidii loo sii laba jibaari lahaa kulankan ayaana qayb ka ahaa kulamo uu maalmihii dambe magaalada Muqdisho ka waday gudoomiye Aadan Madoobe kuwa oo uu kula kulmay
qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka. Kulankan ayaana waxaa kasii horeeyay mid uu gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe uu xafiiskiisa kula yeeshay danjiraha dowladda Imaaraadka Carabta Maxamed Axmed Osman Al Hamadi. Labada mas'uul ayaana waqtigaas ka wada hadleen arrimo dhowr ah sida doorashooyinka iyo xiriirka ka dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Al Hamadi oo kulankan ka hadlay ayaana gudoomiyaha la wadaagay hambalyada uu uga siday dalkiisa oo ku aadan doorashada gudoonka golaha shacabka baarlamaanka 11aad. Soomaaliya ayaa xilligan isku diyaarinaysa inay ka baxdo xaaladda kala guurka oo ay ku daaday iyadoo loo balansan yahay 15 bishan inay dhacdo doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya. dhanka kalena isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa si toos ah u bilaabatay. musharaxiintii ugu badneed ayaana isdiiwaangelisay. waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si toos ah looga daafuray isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya. isdiiwaangelintan oo 2 maalmood soconaysa ayaa waxaa isdiiwaangeliyay tiradii ugu badneed ee musharaxiinta. xubnaha isdiiwaangeliyay ayaana kala ahaayeen kow Sheekh Shariif Sheekh Axmed, 2 musharax Daahir Maxamuud Geelle, 3 musharax Cabduqaadir Cusub Cali, 4 musharax Xasan Cali Kheyre, 5 musharax Bashiir Xaaji Cali Jamaal, 6 musharax Cabdullaahi Cali Xasan, 7 musharax Cabdinuur Sheekh Maxamed, 8 musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, 9 musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo 10 musharax Cabdiraxmaan Ablaal. sidoo kale waxaa la filayaa in tiro kale oo musharaxiina ay isdiiwaangeliyaan. isdiiwaangelinta musharaxiinta ayaana si toos ah uga socotay xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, halkaas oo ay musharaxiintu si toos ah uga qaadanayeen shahaadadooda isdiiwaangelinta musharaxnimo. jadwalka loo aasteeyay doorashada madaxweynaha oo dhacaysa 15 bishan ayaa la filayaa in sidii loogu talagalay ee u dhacaan, inkastoo ay socdaan qorshooyin la doonayay in jadwalkaas lagu baajiyo. halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dalka TV ee Siciidanina waxa uu niyad weyn kala kulmay xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland iyo Puntland. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa niyad jab weyn kala kulmay xildhibaanada laga soo doortay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ee uu sida weyn iskugu haleynayay. sida uu ogaaday dalka TV Media, Saciid Dani ayaa iskugu yeeray xildhibaanada labadaasi dowlad goboleed si uu ugu sameeyo qadar sharaf iyo in uu kala hadlo doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo la filayay inay dhacdo 15 bishan. kulankan oo lagu casuumay 80 xildhibaan oo iskugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo kala doortay Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay kaliya 33 xildhibaan, taas oo muujinaysa sidii loo maleynayay inaanu Saciid Dani taageero uga haysan xildhibaanada labada dowlad goboleed ee uu isku haleynayay. inkastoo kulankan ay ka qayb galeen kaliya 33 xildhibaan, haddana waxaa xitaa hubneen in 33daasi ay wada taageersan yihiin Dani, iyadoo qaarkood ay suurtagal tahay inay qadada u tageen kaliya inay ku ixtiraamaan casuumaadda loo fidiyay. xildhibaanada diiday inay ka soo qayb galaan qadar sharafta uu sameeyay Saciid Dani ayaa la sheegay inay ku kala biireen siyaasiyiinta mucaaradka, iyagoo Saciid Dani u arkay inuu yahay siyaasi aan fursad fiican u haysan in loo doorto madaxweynaha Soomaaliya. waa sida ay la wareediyo u xaqiijiyeen dalka TV Media. xildhibaanada qaar oo nala hadlay ayaana Saciid Dani ku eedeeyeen inuu soo burburiyay maamul goboleedkii Puntland ee loo dhiibay, isla markaasna uu iska hor keenay qeybaha kala duwan ee bulshada Puntland. sidee ku dhici kartaa in siyaasi ku fashilmay hogaaminta Puntland isla markaasna colaad ka dhex abuuray bulshadiisa dhexdeeda in lagu aamino masiirkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan? runtii waxa kaliya ee aan hubo waa in xildhibaanada ay ku midaysan yihiin in codadkoodu siiyaan farmaajo intii ay codadka siin lahaayeen Saciid Dani, ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay Puntland oo diiday inaan magaciisa adeegsano. sida ay qabaan falaqayaasha siyaasadda, Saciid Dani ayaa la rumaysan yahay inuu kaliya heli karo 20 ilaa 30% codadka xildhibaanada laga soo doortay Puntland iyo Jubbaland. ilaa iyo hadda lama soo sheegin codadka kale oo uu ka heli karo xildhibaanada dowlad goboleedyada kale. haddii ay wax u dhacaan sida ay falanqeeyaasha iyo siyaasiyiintu sheegayaan, waxaa meesha ka cad in Saciid Dani ku hari doono wareega koowaad ee doorashada, taas oo aan niyad ku noqon doonin maadaama uu haddaba ogyahay inuusan halkaasi dhaafi karin. وهاجاك داود يالي مكان وحنو ايجينا بقرك دالك السعودية عيا عزبت الله دقي
boqorka dalka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Jeddah ee caasimada labaad ee dalkaasi sida ay xaqiijisay boqortooyada sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay boqortooyada oo ay baahisay wakaalada wararka ee Sacuudiga boqorka ayaa waxa ku soo booday xanuun xilli uu maalmihii dambe xaalkiisa liitay bayaankan ka soo baxay Sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqor Salmaan oo ah 86 jir la dhigay isbitaalka takhasuska ee boqor Faisal ee ku yaala magaalada Jeddah ilaa iyo hadda dowladda Sacuudiga ma aysan faahfaahin xanuunka haya boqorka iyo sida ay tahay xaaladiisa caafimaad boqor Salmaan ayaana waxa uu hore u maray qaliin dhanka xameetida sanadkii 2020 waxaana xogaha la helay sheegaya in xanuunka boqorka uusan markaan ahayn mid la xiriira xameetida boqorka ayaana la wareegay xilka labada masjid ee xaramka sanadkii 2015 kadib markii uu 2 sano iyo bar uu ahaa dhaxal sugaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka wiilka uu dhalay ee Maxamed bin Salmaan ayaa mar hore la wareegay talada iyo maamulka dowladda Sacuudiga kadib markii uu aabihiisa noqday bukaan jiif waxaana isaga iyo aabihiisa go'aamiyeen in boqortooyada loo bedelo isdhalitaan halka markii hore ay ahayd isdhalasho Salmaan ayaana xiray inta badan adeeradiisa sugayay dhaxalka boqortooyada wuxuuna la wareegay hantidii ay lahaayeen oo dhan xilli qaarkoodna aan nolol iyo geeriba lagu heenin guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawada nagu cusubta nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada oo ay la wararkii warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalkana si share gareeyo si uu gaar asxaabadan laagtiinana waa inoo dhiirigelin daawadayaal oo ku maasantiin daawashadii la socodka warka janalka dalka TV Media